dagaaladii ugu waaweynaa saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahdo ay ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay Persia dowladdii Iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa Baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah is hortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطا قال هذا كلنا وحى هجامين إن رستم لا يرادو جانا ندودي وويناي لقدم بيه كامدة مركان رستم وحرب بل ما كان منت لسيدي وفكر يعني إنه وجاده وسعد ويديستي إنه الصادره عد وذا هذا البلو نحمره نبى الله دري وسوء عليه متكلم بلي صادر والله صدح نبى كل بمدو تجي صدح الصحابي أي كل بمدو تجي مثلا مت كم يدون هذين سوقنا ربعي بن عامر با كمده ninkan wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray nin ay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha ربيع بن عامر وفرس يرو قابن وطا soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaacay waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu maan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aala baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay ma abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay سحاري وقت معده وحوق جوابي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ورقنه وحنوسع النابلين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سنة إلهي يقول إن يدتكو الضوامون نقضان ودتكو حرية هلان بانو صعنا بولي عبادة إلهي قاركو نقض وحنو كلاو صعنا بولي إنا ندتك دوني دا عريري قادة كسار رب اللي عيدا وصارو الضوان كان كاربتية دا عصر لكتايا عرشي قوين كفر ديا أيو حكولة عريري كان كاساريا عريري كو قلبي كان دونكو قيمة ونما فرديا وين كاربتيدن iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma sameynayso waxaan kala fiican cadaaladda iyo maartay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigana adduunman ka bixinaya waxaan ku saaraya maxay balaca adduunkan ku geynaya buu leeyahay waxaan kala u socdaa buu yiri diimaha dulmigooda inaan ka kaxayno islaamka cadaaladiisa ku saaro yani mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan ninka xoolo badan oo ka birbirka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiin yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxay keensanaysaa in qofkani diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay xataa haddii sida kale oo dhan laydinka xoog bato walaa tahinu walaa taxzanu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin war haliidanina baa la yidhaha murugoonina idinka koreeya haddii iimaanu jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya salawaad adaynu tilmaamno oo saxaabadan reer Maka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam rabbiga say u muuqdeena
markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale oo 10 al-mubashiriin ah hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galaynaa saasaanu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaalay Umar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii Bayt al-Maqdis inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho وسو سعدي مركو ماشي إن يروسو شري أيوه صامر يدل دير يروب هلا يروب مدنا دبتنا دابدي وفوشنين تعمر كده دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيوه الله بدي كبودنا هلكم كسوقات نيف كيسينا سوه جامي الله بدي ناس كسر حصادي أبو عبيدة يعيد ما دي مسلمين الرجي سود وين يكهر يمو أبو عبيدة وحولي عمرو ما متشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني مقالة ددت كدية مدح دينا يكو أركان سيدان أدقو نكن فايداني عقار دوبادا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر رأي يقول بصدق أدقى عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة waxaan jeclaan lahaa mid aan adiga ahayn inuu yidhaahdo Abu Ubayda adiga waa ka xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kale oo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayda waa ogiyay laakiin wuxuu yara raboon isagoo amiirul mu'miniin ku muuqda amiirul mu'miniin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado لكن عمر روحه كليه وحانو هين إن كنا ذل قوم داد الدل يسمبانو هين إلهي الدين تنبو نقو عزة يضدنا قدق يقولي مركانو عرب هين دول كي يجوغني داد الدل يسمبانو هين جرني لكن إلهي وحو نقو عزة ينقو شرفي دين تطن هدانو كرا دي نبولي شرفت ميلان دين تيضا هين إلهي وانا ذلينيا إلهي الدين بو نقو شرفي waxaan diinahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي يوحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وايو جد صحبات كسوغان تيبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانت وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هي أديك يتولكا بابا إلهي لي إلهينا ويدين دونها marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a marka waxa leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inuu kaga baxno wixii saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya waan qarsanaynin diinta tar inaynu noqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha dhan ba iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeeday inuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays ka hor imanayo challenge ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay
taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago. geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon. kalimatul xaq inaad mar kasta ku dhawaaqi karto, waxaaga inaad muujisan karto, inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto. ولذلك بقى إلهي غير بنو إسرائيل كي هجاجي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وركوا إيمانك لقاها لي وبا إلهي الصبر والله الصبر نكتبال لي مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحنك الله إذن كهر إيمانا ياي يدن كصبر بدن نبا إلهي لي ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكو جرتان إنه فيسيدين نحي جسته إلهينا كعب صدى وقولي سندون تنبا إلهي لي سبحانه وتعالى. انت كدب حينو باهنا هاي نوع من الحكمة، نوع من الحنكة، نوع من اللباقة، نوع من الرفق. يدوم مبادئ كو حكي سنينو هدنا انت اينو si fudud wax u wadi karna inaynu wadno. marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka barba u fahmo cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha. waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay uslubna u noolow. yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. عائشة ayaa waxay sheegaysaa xadiiskii sheekhaynku warinayaan qolaa nabiga u timi iyagoo de ku jeesjeesaya oo caayaya markaasaa waxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum. assalaamu laamkaa laga boodaya laakiin waxaa la iska dhigaya in iyadii la yidhi assalaamu calaykum. assalaamu calaykum waa geeriye korkaaga ha ahaato waa habaar. assalaamu calaykumna waa rabbi ha ku xifdiyo nabadgel iyo wanaag korkaaga ahaado. assalaamu calaykumna waa mawd iyo geeriyo balaayo korkaaga ahaato. dabeetana caaisha intay cadhootay markiiba waxay tidhi bal wacalaykum assaamnu wallacma. idinka cadhada alle iyo geeridiis iyo nacdashiigu korkiina idinka ha ahaata bay tidhi. nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo kuwana maqlaya wixii ay yidhaahdeen caaishana maqlaya waxay tidhi ayuu caaisha haddana tala siinaya wuxuu leeyahay caaisha ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kulli. caashaay ilaahay waa rafiiq waa ku si dabacsan dadka u dhimriya yuxibu rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ayaa alla jeceliyay subxaana wa tacaala. caaisha waxay mooday nebigu inaanu maqlin malaa dhimirtani waa warkii baanu maqlina awalam tasmac ma qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahay rasuulkiisiyo قد قلت وعليكم النبي ومقلي يعني وعليكم بان دو سو غابي. وحنا قدن لنا هي حديث الروايه امام مسلم حيث الامام ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. روايه قال امام مسلم ورنا يا رجينا يدنا وحي شيغيسا عليك بالرفق واياك والعنف والفحش ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. waxaan uga dan leenahay uun caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantood aan xejisanno.